ku soo dhawow shabakada sirta media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa haweenimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha June sanada 2020 ku soo dhawaada warka haweenimo ee shabakada sirta media sirta media waxaa bisha June gudaheeda Muqdisho ka bilowday diiwaangelin lagu hayo guryo xadidan diiwaangelintaas oo lagu tirakoobay guryaha ay ku nool yihiin xubnaha mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn waxaa guriga kugu imaanaya ruux iska dhigayo inuu ka socdo hay'adaha gargaarka wuxuu ku weydiinayaa su'aalo magacaaga iyo nambarkaaga sidoo kale waxa uu ku weydiinayaa tirada guriga ku nool iyo haddii uu jiro qof u dhintay cudurka corona labadii bil ee u dambeysay haddaba sida dadka lagu qaldo waxaa lagu weydiinayaa nooca gargaar ee aad u baahan tahay haddii ay ahaan lahayd cunto lacag ama qalabka looga hortago cudurka corona sidaas darteed dadka la diiwaangelinaya ma qaadanayaan wax shaki ah markay arkaan nooca su'aalaha la weydiinayo waxayna moodayaan hay'adaha UN ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada shabakada sirta media oo hesho xogtan ayaa waxa ay wax ka weydiisay sarkaal qaabilsan aruurinta xogta ah ee ka tirsan agaasinka maamulka iyo maaliyadda NISA oo aan ka baaqsanay in aan magaciisa sheegno sabab la xiriira amnigiisa iyo shaqadiisa sarkaalka waxa uu inoo xaqiijiyay in hawshaasi ay socoto muddo dhowna ay bilaabatay waxaa ka qayb qaadanaya fulinta qayb ka mid ah dhalinyarada xoogagga wadaniyiinta iyo dhalinyaro la qaldi oo loo sheegay in ay u shaqaynayaan hay'ad samafala shabakada sirta media waxa ay weydiisay sarkaalka ujeedada laga leeyahay tirakoobkaas asagoo hadlaya sarkaalka ayaa waxa uu yiri tirakoobkan waxaa loogu gol leeyahay in la calaamadeeyo guryaha shakhsiyaadka mucaaradka ku ah madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu sidoo kale noo sheegay sarkaalka in dhawaan la bilaabi doono howlgalo isugu jira dilal qorshaysan iyo xiritaan arrintan ayaa waxa ay ku soo aaday xilli dhawaan la filayo in dalka ka dhacdo doorasho taas oo ka taagan yahay muran aad u weyn lamana oga xaaladda soo korodhay waxa ay ka bedeli karto culayska siyaasadeed ee saaran madaxweyne Farmaajo dhanka kale taliska ciidamada AMISOM ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerar ciidamadooda ee dhawaan ku dileen dad rayid ahaa oo ku sugnaa tuulo hoos tagta deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose qoraal ka soo baxay AMISOM ayaa waxa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin dhacdadaasi isla markaana ay ahayd mid nasiib daraa sidoo kale AMISOM ayaa tacsi u dirtay ehelada dadkii lagu dilay halkaasi oo ahaa ilaa 3 qof halka lagu dhaawacay 2 kale oo kamid ahaa dadka deegaanka dhacdadii maalintii Isniintii 8 bishan waxa ay ahayd nasiib daro waan ugu tacsiyeenaynaa ehelada marxuumiintaasi kuwa dhaawaca ahna caafimaad degdeg ah ayaan u rajaynaynaa ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray madaxa AMISOM Francesco Madera 3 qof ee geeriyootay ayaa dhamaantood ahaa haween waxaana beerahooda ugu tagay madaafiic ay rideen ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanka Janaale si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada AMISOM ay gudaha dalka ku leynayaan dad rayid ah oo aan waxba ka galabsan waxaana inta badan ay waxyeelada u geystaan dadka shacabka marka ay weeraro culus kala kulmaan kooxda al-shabaab dhanka kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo soo bandhigay 12 dhinac oo uu madaxweyne Farmaajo isku khataaray xildhibaanka oo qoraalkiisa ciwaan ugu dhigay mudane madaxweyne dalkii iyo dadkiiba waad isku wada khataartay qori dab lehna waad isugu dhiibtay ayaa waxa uu qormadiisa ku bilaabay xalay waxaan daawaday muuqaal iska soo duubay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Mawlid Xuseen Guhaad oo ka daba qaylinaya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi kadib waraaq ka soo baxday guddiga joogtada ah ee aqalka sare oo lagu sheegay in golaha uu leeyahay kaalin dastuuri ah isku keenista madaxda heer federaal iyo heer dawlad goboleed si loo helo hab iyo hanaan raalli la isaga yahay oo doorashada lagu galo laguna codsanaya in wada tashi degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan madaxda qaranka kuwa dawlad goboleedyada iyo saamileeda siyaasadeed ka hor 25 bishan June waxaan isweydiiyay senator Mawlid miyuusan akhrisanin dastuurka iyo xeer hoosaadka aqalka sare ma oga miyaa in shaqadiisa ay tahay waxa uu gudoomiyaha u dirsado ama markii ay maqan yihiin gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad in uu qabto hawshooda sida ku cad qodobka 9aad ee xeer hoosaadka aqalka sare waxaase yaab iyo ama kaag leh habdhaqanka guracan ee madaxweyne Farmaajo iyo waxa ku qasbaya inuu isku wada qataara had iyo jeer madaxda kala sareysa ee ka wada tirsan hal maamul hal gole ama hal beel iyo qabiilo nabad ku wada degan ama siyaasiyiin isku heba dadka iska wadaaya xitaa noloshii dadka ayuu isku qataaray madaxweyne Farmaajo tusaale waxaa kugu filan Muudey iyo Mahad Cabad ayuu ku kala qataaray gudoomiye Jawaari iyo gudoomiye Mursal madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Kaas ayuu ku qataaray ku-xigeenkiisa Cabdi Xakiin Camey madaxweynihii Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaab ayuu ku qataaray gudoomiyihii baarlamaanka Galmudug Mudane Cali Gacal iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Carabi oo maalin dhaweed loo magacaabay agaasimaha guud ee mid ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Axmed Madoobe ayuu ku qataaray ciidamo Itoobiyaan ah iyo saraakiil ciidamada ka tirsan oo isku heeb yihiin si ay u afgembiyaan madaxweyne Dani ayuu ku qataaray gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdi Xakiin Dhoobadaare oo sababay in uu sidaasi xilkiisa ku waayo haddana ku sugan magaalada Muqdisho iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayuu ku qataaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya si uu ugu helo guulo ama dhibco siyaasadeed oo uu ku galo ololaha doorashada gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi ayuu shalay ku qataaray ku-xigeenkiisa labaad Mawlid Guhaad oo madaxweyne Farmaajo qaraabo dhow ay yihiin sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qataaray madaxweynayaashii ka horeeyay
qaaqliyaal kiraysan oo dhaleeceen iyo afxumalada wataagan markii ay hadlaan madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray warbaahinta ciidamo iyo garsoor gacan ku rimis ah oo afka iyo gacmahaba ka xiray madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray fahamkii iyo xaqsheegii diinta islaamka wadaadda xambaarsan fariimo siyaasadeed diimaysan oo warbaahinta iyo masjidyada iyo facebookyadaba ka gudbinaya qayle iyo hawaar joogto ah oo ay la beegsanayaan siyaasiyiinta ama cid kasta oo dhaliisho xukunka farmaajo madaxweyne farmaajo waxa uu ku qataaray noloshii isu socodkii magaalada muqdisho dhagaxyo iyo isbaarooyinka lagu dhibo xoogsatada gaadiidka ardayda iyo danyarta nolol raadiska ah haddaba waxa aan sugnaa waa mahdi guuleed oo ra'iisul wasaare khayre ku qataaran mudane madaxweyne dirdiraalaha iyo qoriga dabka ah oo aad dadka isugu dhiibtay dalkii oo dhan waa wada gaaray dulqaadkiina waa naga dhammaaday ma sidaan ayaa dan muday intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray haddii ay ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa dib u dhegaysa ayagoo rogaal celisa adigoon wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta meediya ka dhigo weelka ruma madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu digay madaxweyne Farmaajo in uu shacabku ku hogaamiyo inay hub u qaataan dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay Farmaajo in uusan taariikh xun ka tagin oo dhibaatada dalka ka dhacda taariikhda loogu qorin in isaga uu ku hogaamiyay oo beri la yiraahdo wixii maalintaasi dhacay isaga ayaa horseeday madaxda dalka waxaan leeyahay ha suginina maalinta shacabka idinka hor imaanayo 30 sano kuwii dalkan soo xukumayay ayaa barqaca jidka lagu diray waxaan u soo jeedinaynaa dawladdan raggaasi xabadda lagu riday yeesan isku kalifin in ayagana xabad lagu rido tala aan anaga leenahay lagu ridi maaye ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud marabna inay colaad dhacdo marabna in isjiijid uu dhaco waxaan rabnaa in hore loo socdo waqti badan ayaa naga soo lumay oo 30 sano ah ummadaha kale intaas oo waqti ah kama lumo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo aysan marnaba uga aamusi doonin wixii saxda ah wixii dandara ah lagaaga aamusi maayo wixii gaf ah lagaaga aamusi maayo wixii qaanuun ah oo aan ku heshiinay lagugu deyn maayo lagaagana aamusi maayo Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii kursiga ku wareejiyay madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay in xilligan oo waqtiga gabaabsi yahay in ay madaxda fila Soomaaliya ay ku murmaan in dalka doorasho ay ka dhici karto in kale doorasho ma dhacaysa in xilligan lagu murmo waa nasiib darada ay badeen shacabka Soomaaliyeed fila Soomaaliya mas'uuliyiinteeda ayuu hadalkiisu ku soo gabagabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale xukuumadda Somaliland ayaa si adag uga jawaabtay eedaynta dawladda federaalka ee u jeedisay dawladda Imaaraadka Carabta gaar ahaan shirkadeeda DP World Somaliland ayaa hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cabad ku macneysay mid qalqalgelin weyn ku sameynaya xiriirka wanaagsan ee Somaliland iyo Imaaraadka qoraal dheer oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa lagu sheegay in labada dhinac ee Somaliland iyo Soomaaliya aysan ka dhaxaynin wax wada hadal iyo isfaham ah oo horseedi kara inuu hoos u dhaco maqaamka xiriirka Imaaraadka Carabta qoraalkaas oo ku qornaa luqadda Carabiga ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixinayso sidii ay isku hortaagi lahayd mashaariicda maalgashi iyo horumarineed oo ay dawladda Imaaraadka Carabta ka wado gudaha deegaanada Somaliland waxaana lagu yiri dawladda jamhuuriyadda Somaliland waxa ay ka xuntahay hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ee nuxurkiisu ahaa iska horkeenka iyo qalqalgelinta xiriirka labada wadan ee walaalaha ah ee jamhuuriyadda Somaliland iyo Imaaraadka Carabta dawladda taagta daran ee Soomaaliya waxa ay dadaal badan ku bixisay inay is hortaagto isla markaana siyaasadeyso mashaariicda maalgashi iyo horumarineed ee dawladda Imaaraadka Carabta ka wado jamhuuriyadda Somaliland taas oo ah wax aan marnaba la aqbali karin sidoo kale waxa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland jamhuuriyadda Somaliland waa dal madax banaan oo aan wax xiriir la lahayn Soomaaliya waqti xaadirkan ma jiro wax isfaham ama wada hadalo ah oo u socda jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya maadaama aanu maamulka Muqdisho ka jira ahayn maamul mas'uul ah isla markaana aanu daacad ka ahayn wada hadalo miro dhal noqdo oo ay labada dal ku kala baxaan ugu dambeyn jamhuuriyadda Somaliland waxa ay si buuxda ugu wargelinaysaa dawladda Imaaraadka Carabta ee aan walaalaha nahay dawladaha xubnaha ka ah jaamacadda Carabta iyo adduunka intiisa kaleba in madax banaanida Somaliland ay tahay mid aan kala hawsho lahayn isla markaana dadka reer Somaliland ay diyaar u yihiin kamira dhalinta qadiyadooda ay xaq u leeyihiin wax kasto ay ku kacayso iyo waqti kasto ay qaadanayso wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cabad ayaa waraysi uu siiyay telefishinka Al-Carabiya ku sheegay in shirkadda DP World oo maalgelinaysa dekedda Berbera ee Somaliland ay khatar faragelin iyo kala qaybin ka wada gudaha Soomaaliya midaas oo ay si weyn u dhibsatay Somaliland guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media wixii warar dheeraad ah ama sir qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media Sirta Media
واجي بريبا وحي سو كرديا waxa jira arlada sirta media واجي بريبا وحي سو كرديا waxa jira arlada sirta media